ما عندما أنا ورا تاجو سجار وأنا وجه في كل تو مرة اللي حسيتها كسر كعي ما كل طيحة جديد ساعة سر كعي أتصور كعي موبيلك وحسيته سود لي محمد كابش قاو كل هذا وحيد تقولي طب محمد جوك سوى بعين وعرفنا هنا كذا نورت السبب كدم بيسي دور الميديا هو ده اللي قص عليه يفعل علمت أي قصة معين ضد فربضة بالمناسبة حالة النص وكبرت ما حد أركتي سريع دور تفعل علمتكو أيضا ما سنت عبد الرحمن ساشيتي دور الميديا waxaan aragnay in janaalkii hawada laga saaray runtii durdur media wuxuu ah kamid ahaa youtuberada Soomaalida kuwooda ugu saameynta badan marka la sheego magaalada Muqdisho durdur media marka hawada hadda waa laga saaray soo marka saddex qaab laba qaab ay noqon kartaa in cilad guud oo farsamo oo ay haysato u gaar ay tahay imma in janaalkii si guud looga jabsaday oo kooxaha karisama dad colaha ay heleen marka كليته واحد كهر سدا عبد الرحمن وأنا أديك بدن سميني وحن لحريني قدوميه يعني لحريني دورد الميديا صح وقارد يوروب نلجوا قارد يوروب نلجوا وحو شيء إن أنتوا أي تارين علوس إسلام كان الحالين هاي وهذا اللي هو الجرو كرتي هذا اللي هو الجرو مركا جنال نوع أنا وكلا مركا جنال لجبسنا يا مهاج لو سمينا واحد سهلنا ما أهان مركز الله في رصبته هذا hadda markaad xataa aad isku dayid inaad durdur media booqatid wuxuu ku leeyahay ma jiro janaalkan ma jiro marka in janaalka la daleeday ayay u egtahay oo asaga in hawada laga saaray marka aad fiirisid maadaama aad qof IT hadana dhigtay oo hadana mediahan ayaa in badan ku jiray sidee waa isleedahay rajada uu qabi karo in durdur media dib hawada ugu soo laabto isagoo sidiisii xogtiisii wato janaalka laba qaab waay rajo uu yeelan kara hadii janaalka uu lagu sameeyay deactivate hadii lagu sameeyay oo bas kaliya laga saaray hawada kaliya hadhow active hadii laga dhigo uu shaqeynaa laakiin hadii janaalka delete la dhahay janaalka la baabi'iyay oo soo ascuntay waxay noqonaysaa in janaalka dib loo soo abuuro oo janaal cusub sidaas loo sameeyo bal intaan janaalka durdur media dib u gelin horta xasatoob waa qof noocaya xasatoob runtii aniga iyo ilmaha caanahooda waa isla soo shaqeynay oo waxaan garan karnaa nin aan ku kalsoonaanay khibradiisa dhanka saxaafadda iyo weliba howlihiisa kale ay tahay inay ku kalsoonahay way dhici kartaa waa bini'aadan mararka qaarkood hunguri iyo wixii lamida wuu qaadi karaa laakiin qofka markasta waxaa laga fiiriyaa backgroundkiisa qofkaan halkuu ka yimid qofka markaad garan karto halkuu ka yimid waxaa kuwa yaro fududaa kara meesha u socdo waa dareemi karaysaa لكن أنا واحد عبت يقول أن ما أنت سوء أركب حياتي ويقول قصبين الماء عنو الصواب ويحكوا يقول قصبين ضد ما تقانا عقون هالمركي لده دنك صحافة ده أما دنك ما تقانا حتى الميديا مركي لده أقول ليت أيام ما أنت واحد يكفر حسينهين قول دردي أما علادي سوى جهدي درد الميديا يحسن طب مركب بالمنصر أديكو سيدي دريميرين qof maanta adiga soo kacan qabatay bulshadii aad bartay maanta aad ka dhigto qof kaligiis wax qabsan kara inuu maanta jabkaaga u daanseeyo sidee maya horta runtii dhibka noocan oo kale ah wuxuu soo wada gaar gudoomiyana soo wacay hadda hal mar السلام عليكم boss maxaa isaniyo maxaa codka ma internet ma iga xumo codka gooy siciidow ma yanoo ku maqla hadda uu soo kacay war waa fiican wallahi boss waxni wax kale ma jirin waxaan kuula soo xiriiray waxay ahayd libaaxow arintii ku saabsaneednayo waaba yaaba dad ku faraxsan arka qoslaayo haddaan furi wallahi in bahalka ma furo mugta aniga waa sax bismillah nin waxaan macnay cilad guud miya oo youtube ka haysata miya mise ما عندما أنا ورا تاجو سجار وأنا وجه في كل تو مرة اللي حسيتها كسر كعي ما كل طيحة جديد ساعة سر كعي سر كعي موبيلك وحسيته سود لي محمد كابش قاو كل هذا وحيد تقولي طب محمد جوك سوى بعين ويا بقى سنة موبيلك صدق وقبل عباس حليب سفري عم زمان دورنا قرب كل كجيل ما يقدر تفرض وساق خافت يور نفسه هجرة حسيته نواوع ويا من لا عرس كسجله يوتيوب كان يوتيوب كان جبس حالته ni horta aan youtube waa fiiriyay markii laga hadlayo macnaheedu youtube ka hadii deactivate lagu sameyn lahaa ma aragto oo
sida Facebook oo kale deactivated hadii la dhihi lahaa micnaheedu waxaa waaye hawada laga saaro kan marka does not exist uu leeyahay maba jiro dhooyahay adiga ninka hadda soo walaal ko ninka sababta ka sii u sheegay waxaan dhaarniyo ana la hadlaa kulay toban ninka aan dhabar oo ku jeeso taasoo hoosh wadi marka qofka markuu hool ku dhiyo صح واي ها الله يكادي هذا صار الله عاود من الله إنك هذا سكر عباس كبر هذا المهم وحال قد ما يمشي هذا سكر نظامي عندك كتير شيء غلط قرابة الدين ها إنك أضيع إنه كتم بيميا باسوركو كورها باسوركو هاي زوج تقف رشق جوامع زمها إلا باسورك كور مصدع عاميا كور مكحر نميا adiga waa lagu remove garay ma baan hadda dhawaato jeexda taqaayay tukad hadda daan asoo la hadal maanta wuxuu waa dalba oo muddo maxaa bara 3 maalin 4 maalin 5 maalin dadlayri balay ka qaban ma baan si fiican ha hindi taqaano hatta la kun darada aan ma balan qaadno oo hindi horta waa laga garta qaab walba oo lagu soo celin karo ama lacag ku baxay amba maxaan ku raada sax ku baxay hadda waa galay laakiin wuxuu tahay kan gmail-ka tala badisay password-ki bas duqaat ma fahant aad niyo maya wallahi arintu arin yaab leh wallahi niyo dad badan oo waxaan arkaa YouTubers oo saaxiibo gulfaamo faraxsan ayagana oo dhahayo durdur media hawada laga saaray orma ma hadda xasan arintan wuxuu ku wajihi karaa si aqliyeysan oo farsamaysan uu ku wajihi karaa haduu hadda ma aad wareeriso isku xiro waxa waaye wax ma uu hagaagay laakiin haduu aqli ku raadiyo wixiisu heli karaa ma fahantay bismillah war dhibaato waa haye sida maqlaysaan ilmaha caanooda la hadlayo waa gudoomiyihii durdur media oo qaarada Yurub jooga bal munasar ka waran bal qof adiga aamintay oo gurigaaga aad dejisay oo xaaskaaga raashinka u keenaysay oo iska daay YouTube iska daay hatta hantidaadii iyo qoyskaaga ku aamintay bal inuu sidaas ku lugooyo sidee maxay والله عبد الرحمن ورت أرن ما رتي مشكلة دي ده له واي أرن أذق واي أرن تنوع عنه كلام مركي مريسو سيده طبعا أن درامي كرنو يوتيوب بريسك أنا سومارد وحواي وح كلام هم جيت قوي وحواي درتنا جرو درتنا كجرا لكن درتنا كمان إنه نقضوا ما رتي حاسين مو يو وح لم يبين درتنا كمان سؤال هذيك حق ورئيس الله ده أنا مقاطي الله يا صح lacagtii fiyuuskaagii bishaan kuu soo dhacaysay haddii aan ku xaasinimeeyo intay kaa wareejiso miyaana ii soo direen waxaan ani shaqaystaan leeyahay soomaa challenge waa inaan kugula galaa bis dhagaystayaasha saan kaaga soo kasba lahaa saan kaaga dhagaysto ka badi lahaa laakiin in mataqaanaa hawada lagaa saaro in mataqaanaa lagu niyo jabiyo haddii aan ku farxo dee waa cadaawad see maxaa dareemi lahaa wallahi aniga arintan hadda maaragtay tiimka saaxiibadan soo wajahday aad aan ugu murugsanahay waxaan ugu murugsanahay waxay tahay rag dhalinyaro ah oo shaqaysanayay oo isku filnaa oo YouTube-kooda ka shaqaysanayay in maaragtay cadow noocaas oo kale uu soo weeraro waxa argagax leh waa runtii waxaan rabaa inaan hal mar idin daaro mid kamid ah YouTuberleyda gaar ahaan kuwa uu soo gacan qabtay saaxiibkay Xasan Toob gaar ahaan kuwii aan ku baranay mataqaanaa social media ninkan ka hadlayno waa nin kale maahan waa Ismaaciil Xaaji Cabdalla waa wariye waan u aaminsanahay kaas oo dhanka saxaafadda u aaminsanahay laakiin inuu baraha bulshada ku yeesho taageero aad u fara badan waxa uu ku kasbaday berihii yaraa ee koobnaa uu la joogay Xasan Toob ama durdur media aniga inuu inta bulsho soo hor fadhiisto erayo ku hadli karo aniga ma aaminsanayn laakiin markaan ku arkay durdur media ayaan aaminayn oo intaas in ka badan uu sameyn karo laakiin wax laga xishoodo bal ila dhageysta wax yar kamid ah hadaladiisa Sanda فرحة كده
farxad baa hadalkiisa ka dareemaysaa waxaa macnaha fahmi lahay qof dhibkiisa ku farxaya ahmiyadda uu ka faa'iidayo waxa uu ka heli karo iyo faa'iidada waxa asaga maanta qofkaas ku dhacay ayaa ku imaan karta asaga ku imaan karta marka wax la yaab leh waa Cabdiraxmaan Soomaalida waxay ku maamaadaan taqaanaa geeridii galbeed ka yeerta guntahaaga ka filo oo macnaha ula jeedaan mataqaana murugta xagga ka yeertay haddii aad ku farxado ogow xaggaagana way ku soo maqan tahay mid kalena waxay ahayd ushi walaalkaa ku dhacdo gurmadkeeda aday meel kuu taalaan walaalkeeyow adiga iyo kuwa kale midkaa sida mid ay dhahayaan midaaba sab dhigtaan iyaba mid ay dhahaan jooga ishaag farxad sida midka joogo iyo mid kale dugaali weba farxa waxaba dhigteenba kulan ducaa ay samaysteen ha yarka farxad sida wado janalkiisa dib u raaca wuxuu mar walba ka hadlaa mar walbaba oo analyze ku sameeyaa xogta uu sameeyey baa xasan toob uu sameeyey haddaba doctor haddii hawada laga saaray xad ii sheegi rabtaa marka xad ii sheegi rabtaa adeer waa waxaan faa'iido lahayn waxaan faa'iido lahayn marka ilmaha caanahooda oo wakiilka xagwaraysi iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed oo markhaati TV waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada iyo culeyska la qaybsanaynaa walaalkeen saaxiibkeen bahwadaagga anaanay saaxiibkii xasan toob wallaahi kuma faraxsanin dareen ahaan kuma faraxsanin maxaa la munasir inuu isoo hor fadhiisto ila fadhiisto uu hooshiisa uu ka soo tago sababta qasbaysana waa garan kartaa waa dareen uu ka gubanayo oo dhibka saaxiibkiisa gaaray marka ugu dambeyn saaxiibka runtii waxaan leeyahay xasan toob intii gaarsiimo ay leedahay la dadaalayaa dhinacaaga adna ka dadaal annaga naftigeena waxaan isku dayaynaa inaan maaragtay dagaalanka wax ka galno oo ku saabsan sidii janaalkaas dib loo soo celin lahaa wax aan marka aniga waxaan dhihi lahaa Cabdiraxmaan oo aad u maasanta waxaan dhihi lahaa waxay tahay xasan waxaan dhihi lahaa niyahow ha isdhiibin never give up laa tastaslim dagaalanka waa wadeynaa muxuu ahaa waxaan sameynaynaa isku dayo sidii lagu badbaadi karo janaalkaas micnihii janaal qof keli uu leeyahay maaha waa janaal Soomaaliyeed oo Soomaali dhan ay ka intifaacaysay oo maaragtay rag dhalinyaro ah ay abuureen oo madadaali iyo maad iyo qosol intaba laga helayay marka halkiina ka wada anagana dadaalka halkiina ka wadayna insha Allah waana guuleysanayna anigana waxaan ku sii raacinayaa xasan toob nin aqoon iyo hal abuurnimo aan ku tabaya ayaa tahay haddii maanta xataa in case ay dhacdeen lagu guuleysan waayo janalkaas weli hal abuurkaagii wuu kugu jiraa aqoontaadii way kugu jirtaa waxaadna kasba kartaa bulsho kala duwan laakiin midaan hadda kugu dhacday ha kuu noqoto tusaale wanaagsan ha kuu noqoto mid ah inaadan cid kasta aadan aaminin ma garanaysaa cid kasta inaadan aamin sababtoo ah kii aad gogoshaada uga kacday kii aad mataqaanaa raashinka aad adiga hormarisay kii aad tiri xaajidaada badarka ugey fadhiga ugeysay cunug ee dhashay haddii uu sidaa kuu galay mataqaanaa ma garan karo qof kaloo marka kusoo dhaweynayso aaminaadoodu ha yaraato waxaan dhihi lahay saaxiibkay oo hadda naloo sheegay inuu ka dambeeyey waa ninkay dhahayaan nidaamiye ninkay dhahaan ana kuma xaqiiji karna laakiin sida waraysiga hadeertaan lagu sheegayo oo agaasimihii dhan oo noo sheegay ninka hadda tuumka ugu badan lagu tuumayo inuu barnaamij ka dambeeyey waa nidaamiye oo la sheegay inuu xataa baasweerka gmailka uu hayay la sheegay marka waxaan leeyahay saaxiibkeeyo mataqaanaa guusha sidaa laguma gaaro guusha waxaa lagu gaaraa dadaal iyo kartidaada iyo wixii kale aad sameey karta marka saaxiibkay ilaahay ayaa kuu fududay inta ku hartay saaxiibadeeda kale uu sida Ismaaciil Xaaji iyo yarkaan farxaside iyo ay ka mid yihiin wixii lamid ah waxaan leeyahay saaxiib yaal guusha walaalka ayaa guul ku ah laakiin guul darada walaalka ugu guul dara ayaa adeena kuu tahay sidaas nabadgelyo asxaabta sharafta leh waa bidhaamiye iyo saaxiibkiin ilmaha caanooda idin lahaa sidaa ay nabadgelyo